السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة هاي cajaladaas af carabiga ku duuban ee aan kuu soo dhigay waxaan doonayaa in aynu dadkeenna oo dhan gaadhsiino wixii caruur leh. ruux dumar oo 4 caruura haysatay ayaa caruurtaa ayay qufac la seexan waayeen, dabeetana dawadii qufac ay siisay ciyaalkiiba dawadii qufac ka qaadan waayey, way ku canaadeen, dabeedna caanay ugu dartay. 4tiiba way siisay, warkaa ciyaalka waa seexdeen. odaygii baa yimi, koobkii ay ciyaalka ku siisay caanaha, koobabkii ku siisay koob ka mid ah oo in yaroy ku hadhay ayay odayga caano ugu shubtay. odaygiina caanihii buu cabbay, in yar ka bacdi baa caloosha xanuuntay, xamaamku ku hararay uu soo qaacay. na waa maxay waxaanaad siisay buu yidhi. waxay tidhi waa caano, laakiin koobkan kugu siiya dawadii qufaca lahaado aan ciyaalka ku siiyey markay iga cabbi waayeen dawadii. odaygii baa tegey, ciyaalkii buu eegaysaa, 4tiiba waa finish. ka hunqaaci buu is yidhi, fartay geli buu is yidhi. wuxuu u yeedhay iscaafkii medicalkii, adigu waa laysugu tegey. 4tii caruur ahayd ilaahay ha u naxariisto. dabeedna waa la baaray, war macaanahaa sun lahaa, caanu macaana bowdhay ahaayeen. caani baa la baaray, waxaa la arkay inaanay caanu sun lahayn. dawadii baa la baaray qufaca, dawadii qufaca waxaa la arkay inaanay iyana sun ahayn. markii la yaabay ayaa waxaa la sameeyey, waxaa la isku daray dawadii iyo caanihii, dabeetana laabka ayaa loo diray. dawadii qufac iyo caanaha bowdhay ayaa la isku daray, laabkaa loo diray. waxaa soo baxday haddii dawada qufaca caano lagu daro inay caanuhu isu bedelayaan sun, qofka markiiba dilaysa. markaa sidaa daraaddeed iska ilaaliya hooyooyinka leh caruurta haystay. haddii caruurta dawada idinka cabbi weydo caanaha ugu darina, waa dilaysaan ilmihii, markaa waa finish, waa geeri. markaa gaadhsiiya nin walowba cajalada, gaadhsii ummadda islaamka ah iyo dadka wax fahmaya oo dhanba. wada salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa odaygii maxamed ismaan gadhowey.